السلام عليكم سو هذا أصحابتي كحرن يوتيوب كيا شرف المساعدة بمستيل أنت موضوع عن هذا نحويا يتكون أول فهم دونتان غاب كان شرحيه طبعا مسكحة ديالو حياة الله سبحانه فوي بلادك مسكحة لسه تديوجا مسكحة له بقولك طوان أياك فايدسته بلادك بقولك بس كاش كلا ولا كفايدسته dadka كفايدسته runtii dadka aad ku maskaxda badan channelsku marka hore ma soo maro ama uu aragtiisa ku soo maro sida darteed ba boqolaal ay kumanaan maskax xoolahaya ama lacag istaago maamushaan oo maskaxdu uga faa'iideysta marka nolosha inta badan adduunyadan waxyaabo badan baan israacin oo mamnuuca maskaxda lacagtu si ay isu raacaan wadaadta marka hore waxaa laga yaabaa dib iska raacaan oo maskaxda in badan wadi shaqaysa dib xoolo ugu hesho markaas ma raacaan saddexna kalena isma raacaan oo quruxda hantida iyo fariidnimadana isma raacaan waa mamnuuc labada aan israacin marnaba ilaahay ka soo raacina waa ragnimada iyo hantida meelnaba isma raacdo marka labadaas inta badan isma raacaan waayo qofka inta la soo raaciyo dadka uu ka tagay marka adduunka waa la soo dheelitiraya waa la soo celcelinaya marka waxa weeyaan waxa ka hadlayna maanta Soomaalida ma sha Allah horta dadka halabuurka ah maskaxdooda ka shaqeysay oo nagu yiri runta marka laga hadlo boqolkiiba xitaa 30 ma gaadha boqolkiiba 70 dadkeenu ma fikiraan wadada dad kale ku tirsan wadada nolosha qoyska muujiyo wadada aamin san noloshu inay dalka oo meel kale ay taalo tusaale horta dalkeena haddii ka soo qaad social media meel ka samaysato aad tirado ku faa'iideynaya aqoon ku soo maray laga qaadmay laakiin dad tirado ku madaalinaya oo ku xaraabeynaya wal daawanaya tusaale soo qaadanayna guri blog kale guri blog tuwanin halabuur leh wanin yani isku filan wanin maganaysa isagii jila sameeya waxa weeyaan tusaale ku soo qaadanaya YouTube fiican weeye YouTube jacsan shaabid leh ma sha Allah dhawaanahan dadkii maxamed riwaayadiina si ku soo yaray baxayaan maganaysa oo wax la bartaa ka filmaantii oo marka dadkii waxay barteen filmaan salaada oo marka la sameynayo barbar soo galayo inkastoo marka Soomaaliya halka film sameynta waxyaabo badan inaga yihiin wada aragteen aflaanta caalamka la sameeyo ugu yaraan 100 qof 200 qof ayaa ka shaqeysa wuxuu xawl yar ma qof wax u qabanaya dhowr qof codka qaybsan qaar qof wada aragteen qofka arkay warkay qaar dhowr dad badan waxay qaybsan meel lagu duubay hagaajintooda dhowr qof waxay qaybsan yihiin haday idinkarinta hagaajinta tahay marka Soomaaliya hore film ma sameynaya waxay alaab qalab badan baa loo isticmaalaa kamarada meel la istaaga xal duubay film noqonaya marka film waxaas film noqonayaan muhiimadu laakiin wixii uu qofku soo bandhigi karo wax sheegi karo sida Soomaaliya aad magaraysa ay Soomaalidu shaqaysaa ama wax warato marka waxa weeyaan kan guri YouTube-kiisu waa yara magaraysa project ma yara leesana yaro aan soo baxay oo islaadii madar la filaya ay u yaray marka ilaanku iska dabacbili qolaatiga sameeyeen filmtinka may riwaayadka iyo xasi sameeyaan riwaayadii way qarxday waxay noqotay YouTube aad bay ku xiisay waxaana ka mid noqotay filmaanta ama riwaayadaha Soomaaliyeed ugu dawashada badan marka odaygu guriga uu yaray wuxuu yiri kaalay la jir yani riwaayad jin oo kale macnaha taaniina ku dhaxwada si fiisku sida usoo qarxo xag anasa fiiskaas kale oo helo marka taltiidu waa creativity macnaha waxaan leeyahay waa maganaysa maskax in la adeegsado fiican tahay
markaa maskax buu ku wadaa marka waxa weeyaan tan waa reaction ahaan maaha si kale dad xun sheega ama dadka sida khaldan u fikira sawir khaldan ama tafsiir khaldan ka bixin waa reaction aan ka bixinayna bay ahayd yani qiimeynta dadka creativity-ga Soomaalida halka ka taagay intii boqolkiiba ka noqonayso oo ka soo hadalnay sidaasna ujeedadana ahayd Facebook-an YouTube-gan aan muuqaalkan igu soo gudbiyay muuqaalkan soo gelin doono ama aad ka daawan doonto video cusub haddii aad ku cusub tahay subscribe saar videogan like saar like-tuna waxay noo noqonaysaa dhiirigelin sidoo kalena sii share garee waxaa dabcan sidoo kalena Facebook page-keena dir ama Sharaf Films kaba muuqaalkan aad ku aragto sidina share garee dooyo badan xiis badan baan soo gelin doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin